waxaa maanta magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn laga dhagax dhigay dhismo cusub oo yeelan doonto jaamacadda BSU Puntland State University oo markii ugu horeysay laga hirgelinayo guud ahaanba deegaanka Buuhoodle waxaana munaasabada dhagax dhigga oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ka soo qayb galay aqoon-yahano waxgarad culimaawidiin siyaasiyiin bahda waxbarashada maamulka gobolka ganacsato iyo waliba sidoo kale mas'uulka ku deeqay dhulka laga hirgelinay dhismaha jaamacadda BSU ee magaalada Buuhoodle Cabdirashiid Cawil Bacaluul munaasabadani maanta lagu dhagax dhigay jaamacadda BSU Puntland State University ee magaalada Buuhoodle ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay Cabdirashiid Cawil Bacaluul oo ah mas'uulka ku deeqay dhulka laga hirgelinay jaamacadda BSU dhismaheeda ee magaalada Buuhoodle anigoo ah Cabdirashiid Cawil Bacaluul waxa maanta sharaf weyn ah iyo subcad iyo karaamo inaanu dhagax dhigno jaamacadda la magac baxday Puntland State University jaamacaddaas oo ugu talagalay in ay wax ka bartaan ardada gobolka Cayn ee dalka state-ka Puntland waxaan rajaynaynaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed khaasatan jaaliyadaha Puntland iyo Jubaland iyo SSE inay ka qayb qaataan dhagax dhigan karaamaysan ee sharafta leh oo aanu maanta ugu talagalay in aan wax ku baro da'yarteena ka soo baxda dugsiyada sare oo aad baahi ugu qaba jaamacad local ah oo laga leeyahay deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn khaasatan degmada Buuhoodle haddaba waxaa sharaf weyn oo ah dhammaan odayaasha uqaasha ismada iyo waxgaradka ka soo qayb galay xafladan insha Allah mid ayay kulay uga hadli doonaane in ay maartay ila dhagax dhigaan anigoo ah Cabdirashiid Cawil Bacaluul oo ka soo jeeda diaspora Minnesota Minneapolis I hope everybody knows me sidoo kale waxayna halkaas ka hadlay ganacsade Xuseen Maxamed Aadan Dhalandhool Maxamed Deeq Xaaji Xasan Xundub iyo qaar kamid ah culimaawidiinta magaalada Buuhoodle oo geesido soo dhaweeyay dhagax dhigga iyo hirgelinta jaamacadda BSU ee magaalada Buuhoodle oo markii ugu horeysay laga hirgelinayo deegaanka Buuhoodle waxaana dhinaca kale ay baaq nabadeed ay u jeediyeen beelo walaalaha oo dhawaan dagaal ku dhex maray qaybo kamid ah gobolka Sool aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta dhagax dhignay jaamacad kamid noqon doonta insha Allah jaamacadaha deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn khaasatan gobolka Cayn waxaan aad Ilaahay uga rajaynaynaa in Ilaahay mashruucaas uu noo hirgeliyo taasoo ay ka faa'iideysan doonaan dad fara badan iyo dhalinyaro fara badan oo deegaanka u dhalatay waxaan kale oo ku darayaa waxbarashadu waxa weeyaan waa furaha nolosha waxaa loo baahan yahay marka in cid hirgelisay iyo cid kasta oo danaynaysa iyo cid kasta oo garanaysa qiimaha waxbarashadu ay ka qayb qaataan hirgelinta mashruucaas waxaan kale oo ku darayaa oo jaamacaddan dhagax dhiggeeda noo raaca baaq aan u jeedinayno shaqada ka dhacday deegaamada Qoriley iyo Gumburka labada beelood oo walaala ah aad bay noo dhibaysaa runtii aad bay noo dhibaysaa dhibaatana maalmo soo noqotay waxaanu leenahay horeyna u nidha haddana leenahay xabadda hal la joojiyo aqligu ha yimaado hal la wada hadlo waxaanu kale u digaynaa dadka ashqaasta ama afraadda ama cid kasta oo arinta xumaan faraha kala jirta inay faraha kala baxdo waa u digaynaa ha kala baxaan ashqaas baanu ognahay faraha kula jirta oo meelo fog joogta ha kala baxaan faraha ha u daayaan dadka walaalihi ha heshiiyaan waxaan hambalyeelaynaa jaamacadda la dhagax dhigay uu hormuudka ka yahay mudane Cabdirashiid Cawil Bacaluul waxaan leenahay jaamacaddii hana qaada ee laga faa'iideysto Ilaahay ha ka dhigo amiin ثانيا ayaa qayb ka noqonaysa horumarka dhanka waxbarasho ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku talaabsanaysa magaalada Buuhoodle waxaana hirgelinta iyo dhismaha jaamacadda BSU ee magaalada Buuhoodle ka qayb qaadan kara cid walba oo jecel horumarka ummadda Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Jaamac Xaashi Cabdiraxmaan Wadani TV-ga caalamiga ee dawladda Puntland Buuhoodle